kulankan oo looga hadlayay ka hortagga cudurka COVID-19 ayna ka qayb galeen gudoomiyaha gobolka Mudug maamulka degmada Hobyo saraakiisha booliska iyo badda xubno ka tirsan hay'adaha Meersi iyo Sisfa ayaa lagu qabtay magaalo xeebeedka Hobyo gudoomiyaha ku-xigeenka degmada Hobyo Maxamed Cawaale ayaa sheegay in cudurkan uu halis yahay loona baahan yahay inay bulshadu ka digtoonaadaan iyo shacabweynaha reer Hobyo runtii aad iyo aad cudurkan baan ee coronavirus-ka waa dadweynaha iska kala xiray oo meel walba oo maaragtay adduunkii dhibaatada weyn u geystay waxaan Ilaahay ugu baryaynaa dhammaan meel walba ay joogaan dadkan maaragtay bini'aadamka ama dhammaan muslimiinta ama Soomaalida in Ilaahay ka nabadgeliyo oo runtii aan dhihi karno cudur xun weeye adduunka oo dhan la iskaga koosho waayay anaga ka Soomaali ahaan ka gaar ahaan Galmudug runtii arrintaani waxaa moodaa in laga jeeftay cudurkan Ilaahay uun baa horta dadka qaba kara laakiin in laga hortago oo hay'adaha iyo maamulka iyo dhammaan in iska kaashadaan Dr. Umar Abuukar iyo Cawaale Ducale oo ku hadlayay magaca hay'adaha Sisfi iyo Meersi ayaa tilmaamay inay sii wadayaan shaqada wacyigelinta ay bulshada u hayaan maanta waxaan iskugu imaanay kulan wacyigelin ah iyo inaan dadka tusno bal cudurkan coronavirus-ka inuu yahay cudur adduunka dhan ka jiro dadkeedana aysan u lahayn wax awareness ama ogaan dadka qaar kood waxay leeyihiin waa hargab xumaaday marka maanta waxaan isbaranaa sidii maskara loo xiran lahaa sidii gloveska loo xiran lahaa hand washing sidii gacmihii loo dhaqan lahaa qofka gacanta u dhaqan lahaa procedures dhan dadka baranaa iyo hadii cunuga qofka uu isku arko calaamadaha cudurkan coronavirus ama COVID-19 loo yaqaan calaamadaha lagu yaqaan oo ah haduu qandho iyo qufac iyo hindisiyo badan qofka isku arka iyo hadii ay dad kale oo dibadda ka yimid qofka exposure la sameeyo amba uu la kulmo kale marka kiisaska suspected ka ah inaan anaga laftigeena aan isolation u sameeyo waxaan joognaa magaalada Hobyo oo lagu soo dhaweeyay hay'adda Meersi meeshaan ku qabanayno maanta meeting-kan waxaan ka soo hay'adda Sisfi saadatan waxaan u soconay wacyigelin deegaanada aan ka shaqeyno dhan aan wada marayno oo gudoomiyaha gobolku uu maanta hogaaminayo gudoomiyaha gobolka Mudug Cabdiraxmaan Cali Diiriye Isxal ayaa dhankiisa yiri ujeedada aan u nimid oo targetkaygu yahay waxa weeye cudurkan dadweynaha rogay sidii looga hortagi lahaa la iska kaashan lahaa wacyigelin loo sameyn lahaa way ujeedkaygu waxaan marka madaxda degmada iyo bahdina caafimaadka ee Meersi iyo Sisfi shaqada aan la haysiinay ka gobol ahaan hadda amarka aan ku bixinay in ay idinkuna qaadatiin ummadda gaarsiisiin wacyigelin ay sameeyeen waa ogtiin xalay u dambeysay wasaaradda wuxuu ku dhawaaqay in iskuuladii wali ay xiran yihiin Baasha Al Xaashi raadiyaha TV-ga qaranka Hobyo